السلام عليكم أحبابي ميل والبا جوجتان وإذن سلامي كسو دوادا جنرال كيغا دكتوري سوجيا هديات كعصب تاي فضلا جنرال كسبسكراب يسار موقال كان إلا كري آديات سنتهين موضوع ما تكهلا يوحوية هاي سؤال لي سويديي سيدتان دومركا حيليغا قلمدا بيها مركي كي مادان كدب راحة يدو مقادتي أما ولي راحة أياو لمن أما وحبا وهرسان والسؤال إن بدن وباهن إن la ogaado dadka badana ay baahan yihiin in fahmaan lamaanuhuna ay ku fahmaan nolosha insha Allah haduu rabbi ka noqdo waxaynu ka dhiibaynaa sharaxaad iyo jawaab waafi ah hadayna gudagalno muuqaalkeena biidmillahi kareem haduu rabbi ka noqdo guurka horta waa shay muhiim ah misana wanaagsan qofka hela cunto biyo iyo guri raaxo guud waxa kale oo muhiim ah in aad ogaato sida jirka cunto ugu baahan yahay saalixadaada gacmo dareen leh oo siiya diirimaad kalgacayl waxaa jirta in aad leedahay qayb ka mid ah jirkaada oo ah sida qasnada oo kale oo aan la ogaan karin saygaada ama xaajiyadaada haddii aadan siinin furaha qasnadaasi taas waxa aan uga jeedaa in aad u sheegto sida aad doonaysid in uu kugu raaxeeyo farxadana kugu siiyo in badan waxaad moodaa in uu qof waliba og yahay qaybihiisa dareenka badan ee uu leeyahay laakiin weligaa ma ka fikirtay sida kilkilada ama xundurta ayaa ah qaybo dareenka xambaarsan marka lagu guda jiro gogasha meel dheer magaasiya xamaasada iyo kulanka gogasha sida la ajigeeda waxaa wanaagsan lamaanaha in ay mar waliba is-xog ogaadaan si ay isku xog qaataan noloshuna ay ku qaataan farxad haddii aan lagu qanacsaneyn gogashaasi ogow noloshaasi qanacis ma lahan wuxuu ku dhamaan doonaa guurkaasi mid fashilma si aysan u dhicin guurkaaga ama qofta aad jeceshahay in aad nolosha ku fashilanto ama ku fashilantaan isxog wareysta isna weydiiya qaabka qof walba wax uu rabo ugu dambeyntiina waxaan idin leeyahay qoys lagu waaro lagu nagaado naqda insha Allah haddii aad qabtana wax su'aalo ah igu soo gudbi qaybta commentiga insha Allah